dabcan markii furiinka laga hadlayo iyo soomaalida muqaadaraadka waxay ku leeyihiin kaalin aada u ballaaran oo khamriga dadka cabwaaw ay nagu yaryihiin waxaa jiro dad kaloo isticmaala muqaadaraad kala duwan anagoo muqaadaraadkaas iyo waxa ku saabsan ka hadlayna su-aal kale ayaa jirta saa-il ayaa waxa uu leeyahay dhanka guurka kagama hadlayo lakin wuxuu leeyahay jaadka ama qaadka waxaa loo yaqaano cidbas u yaqaano oo dee soomaalidana fara ba-an ku hayo meel walba ay joogto kuwii dalkii jooga haba ugu horeeyeen waxa uu leeyahay dembi miya intuusa la egyahay dembigiisa runtii qaadku waxa weeye dadka mujtamaca soomaalida iyo mujtamacaad kale oo kaleba fara ba-an ayuu ku hayaa dhibaatadiisana dee waa la wada dhadhamiyey culimaduna in fara badan ayay ka hadashay waa cusub maaha umalayn maayo markii koowaada sheekada qaadka inay hadda tahay wadamada hore u maray iyo marka la eegana iyagana umaba ogolaba wadamadooda in lasoo geliyo intooda badan marka qaadku xaaraannimadiisa iyo xalaalnimadiisa waxaa inoo xadidaya dheefta iyo dhibka uu leeyahay markaasaan ka duulaynaa waxaan isweydiin karnaa dheef ma leeyahay hadduu dheef yeesho dhib ma leeyahay hadduu dhib yeesho labadoodi baa la isu barbar dhigayaa labadoodi baa la isu miisaamayaa hadduu dhibaatadu badatana khaanadda xaaraantu gelayaa hadday dhibaatadu yaraato wanaagu batana wuxuu gelayaa khaanadda maxaan ku rahda marka qaacidadaas waa sidaas waxyaale waxaa jira waqtigii nabiga ee diintu waqtigii soo degaysay aan jirin marka miisaanka la saaro inta badan waa kuwa diintu marka waxaa jira waxyaalo ay maaragtay ilaalisay ayaa jira sideedaba oo la dhaho addaruuriyaat alkhams shanta shay ee lagama maarmaanka ah shantaa shay nafta bini aadamka diinta ugu horeysa kow ta labaadna waxa nafta bini aadamka ta saddexaadna waxa weeyaan cirdiga iyo sharafta iyo maxaan ku dhahdaa nasliga iyo wixii dhanka la xidhiidha midda kalena waxa weeyaan caqliga marka waxyaabahaasoo idil waxaa laga sameeyey maxaan ku dhahdaa diintu si dheer bay uga hadashay marka qaadku wuxuu soo gelayaa waxyaalaha saameeya caqliga sababtoo dad fara badan oo tajrubo u leh oo soo dhex galay oo in badan ku jiray oo ka baxay iyo kuwa ku jiraba way kaaga sheekeynayaan waxyaalaha qabsaday iyo maxaan ku idhahdaa sida ay maaragtay khaladaad u sameeyeen iyo sida ay waxyaaba isu moodsiiyeen yay kaaga sheekeynayaan qaar waxaa ka sheekeeyaan wax dubaab la dhaho ku dhaco oo maaragtay maxaan ku idhahdaa masaa'ib kale ah oo ruuxu uu macnaha uu isgaran waayo oo uu qabanayaa ruuxu markuu malaha moogaado oo kale marka dawadiisii waxaa ah marka idmaan ama maaragtay wixii inuu ruuxu uu ka foqi waayo oo kale macno noocaasa ayuu sameeyaa marka mar maskaxda ayuu maaragtay saameyn ku leeyahay oo caafimaadkiibaa taa dhanka caafimaadkaynu ka dhigaynaa maskaxda keliya ma ahee waxaa kale uu yani maxaan ku idhahdaa uu dhibaateed soo gaarsiinayaa ilkaha qofka ilku waa wejiga ayay ku yaalaan waa meelaha ugu qurux badan ugu muhiimsan bani aadamka wejigiisa qofku hadduu maaragtay ilkihiisu ay waxsi ka yihiin ma qusli karayo dadka ma waajihi karayo od garanaysa ilkaha yani diinta xitaa halkii ilig wuxuu ku qiimaysan yahay 5 halaad ayuu ku qiimaysan yahay 32 ilig dadka waaweyn ay leeyihiin haddii lagu dhufto hadda min 5 halaad oo geela waa 160 halaad 160 halaad buu qofka dab ku shubay markuu ilkihiisii dadka sida joogtada u cunay waliba sida hanandarada u cunay ku seexda ilkahoodu kibriidka afkiisa oo kale noqdaan marka dambe way wixii oo dhan way baaba'aan marka caafimaadka dhanka maskaxdiina waxbuu ka yeelay xagaan waxbuu ka yeelay waxaa kaloo wax ka yeelaya qaadku dhinaca maxaan ku idhahdaa caloosha oo imsaak iyo maxaan ku idhahdaa calool istaag ayaa ku dhaca cunta ka go'itaan ayaa ku dhaca qofku marka waxaad arkaysaa daa'iman dadka cunaa intooda badan waa dad caata ah oo soo gadan oo cuntada ku yar tahay hurdadiina maadaama wixii maaragtay waqtigii la seexan lahaa waa la habeenayaa oo habeenkiiba inta badan cunaa waa marka dhinacyadaasoo idil wuxuu saameyn ku leeyahay xagga caafimaadka dhinaca kalen jaleeci karna waxa weeyaan xagga dhaqaalaha mujtamaca soomaaliyeed maanta waa mujtamac iska faqiir lagu tilmaami karo waa burburay dowlad loo shaqeeyo ma jirto ganacsi fiicani ma jiro maxaan ku rahay inta badan dadku waxay ku nool yihiin beelalka dibadaha laga soo diro kolka dhaqaalaha gala qaadka soomaalida maanta meelo badan ayuu u buuxin lahaa waxaa laga yaabaa reerkiisii oo baahan caruurtiisii oo gaajaysan reerkii oo kiradii guriga loo haysto
inuu ninkii waxaasoo dhan xusuusan waayo ilaa waa nin qaadan oo maxaan qaade qaadku waa qaad baan maqli jiray waa qaadayahay inuu yacni dadaalkiisa oo dhan isugu geeyo siduu ku heli siduu heli lahaa majinjaada uu ku heli lahaa ama marduuf hadday koox yihiin marduufka way maanfilayaa taqriiban waad garanaysaa marka dhibaatadaas dhaqaale ee u hayo beelkii caruurta wixii lasoo helayba maarata xaggaa lala aadayo xataa ninkii shaqaysan lahaa ma shaqayn karo oo reerkiisii usoo xoogsan lahaa biil keeni lahaa ma ilan bahalkani waxa weeyaan ninkii baabkaa gale ee faylkaa halkaa faylkaa gala waxa weeyaan waa ninkaa dhintay oo mana shaqaysan karo waxna ma qaban karayo marka dhaqaalihiina haddii la qiimeeyo maanta dhulka soomaalidu ay degto qaadka haddii bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi la gaarsiiyo deegaanka dhibaatada qaadku dowlad iyo dhulka soomaalidu ay ku kala maqan yihiin ma aha taasi raad weyn kuma leh laakiin meesha soomaaliya laga helaa qaad baa laga helaa dhibaatada ayuu waa si isugu mid ayuu u hayaa marka masaafada intaa dhan dhaqaalaha gala dad iyagoo lacag adaga dad kale haddana oo wadamada dariska dib ugu laabatay waxa weeyaan miisaanka yani miisaaniyadda dalka ama dadka Soomaaliyeed yani wax xoog leh u dhimaysaa runtii anu hadda ma hayo qiyaaso hore way jiraan lahayo oo ilaa waqtigii dawladda Soomaaliya la sameeyay oo malaayiin dollar ku qiyaastay qaastan waqtigii la joojiyay Soomaaliya laga joojiyay qaadka laakiin fi kulli xaalaad ama shaqadii qofkan ka fadhiista ha noqoto ama wixii yaraa ee uu ku maaragtay qaadkii ku iibsanayay ee uu reerkii oo u baahan ka waxay ha noqotee dhibaatadaas dhaqaalana qaadku runtii waa leeyahay marka waxaa kaloo leeyahay dhibaato saddexaad oo qoyskii laftirkiisii ileen ninka ilmihii iyo reerkii xaq bay ku leeyihiin inuu ka warhayo maxaan ku dhahaa doorkiisii waajib uu kaco carruurtii waxbarashadoodii tarbiyadoodii ka warqabkoodii ninku hadduu baabkaa galo oo uu maaragtay qaadkaas shaqo u noqdaan waxaa laga yaabaa inuusan carruurtiisa arag waxaa laga yaabaa inuusan reerkiisa arag waxaa laga yaabaa inuu habeenbarkii soo hodo saaca 12 habeennimanka kala barkii haddana markay carruurtii ay kala baxayaan haddii iskuul iyo aadaan isagoo jiifa ay ka tagaan ama labada dambe iyo saddexda dambe baa laga yaabaa inuu marka qaar yimaadaba marka nikaadka qaar ama maaragtay kaftanka Soomaalida qaar ay sheegeen nin waxaa la sheegi jiray maalmaha ka mid ilaahay uu la soo kulmiyay carruurtiisa oo qoraacanaysa mid ka mid ah waxa la yidhi maba yaqaano ma uusan arag basho intaas oo sano islaantii uu ku yiri kan madax xiran ee carruurta ka dhameystay cuntada madarisku inaga soo wareegay muxuu ahaa marka dee wiilkeennii hebelaha war wiilkeennii hebelaha ma garanay ka saara meesha ma garanay ma yaqaano ma arkin halkaas gaadhay marka inta reere isku furtay inta reere biil weyday inta islaamood ee waad garanaysaa hoogii halaag u dhigay intaas oo dhib marka la isku daro ee dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo reer ahaan marka la isku daro halka haddaan dhigno masaalixda ama wanaagga uu leeyahay maxay noqon kartaa marka ma in la mirqaamaa ma in maaragtay waqti dheeraada lagu bixiyo waqtiga faraaqada ah ma garan kara anigu wax hadda la sheego kuwa laftirkooda marka dadka qaadka cuno doctor ka dhaxgal iga raalaw waxay ku andacoodaan markii wanaagiisa wax laga weydiiyo ninka ugu fiican wuxuu yiraahdaa waxaan ku baabi'inaa mushkiladda iyo problemyada na soo hayo يعني قفك مركو مرجيسين هاي أما هول وحي يكون حريين مركو قاد كاس عنه حنقنا يقف هبية أو فرحسان وسعيدة. لكن سؤال حتى إلها قرمة هي صعون سعرن تاسي. مشكلة دم بيكون فجاني سابق هذا كوجي. فجاني سا ونلقى بسنة يقول يجو ماركتة يعني أنت وصاص وصعون يا. تكلم قفك مسلم كأنه يرى هذا وقت كي صورنا أنت وحاسي يرى هذا وقت وحن رادينا يا مشاكل بانك رومانا يا وحن رادينا يا مركز راحة يو خيال إنه ظهر قفكو هي واحدة لنتيذا معها إلهي سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني قفك عيار الله أبو ري ومرة مالها فريستو مرنا وما أهله ما أبو ري مسؤوليات إيها ولو أيا سارا قفك أنا وقتي سوى لو يدينا إياه مركا وحال الرواين وحكا لو وقفا إذيستو وحن هدي ومارك اللقب صدي وكل نقضي وحونا كفق كرينا والله حيلا أفترك عافماتك والله حيلا علماء وسوق ددال سميا لو بحيه يا ما إنه كسي فوقاده هذيك إلى واحد يقول دلو إن بالكن وحويان ما كفقتونه اللي خطرتي سوساسي هو انتهي مركا نساء ميزانه وحين قلين كرناسي فضوط إنه ودي إن هذا الكيس كمان أوران اللي وينه كلا نقدر وين يعني خانة حرامته أي شيء مركا هو قليه صحيح وحاكي له أيضا معروف النبي صلى الله عليه وسلم شيء إضاعة المال حوله إن هذر لقدبه يعني ما ركتي لما أقوله marka xoolihii inaad maaragtay waxaan macna lahayn aad geliso iyadana waa qodob kale iyadana ku darmanaya ku horan sheegino
dhinacii maaliga ama dhaqaalihii bay iyaduna gelaysaa soo gelaysa doctor waa mahadsan tahay in yaraa ku darayaayo ku xasuusinayaayo usrada marka laga soo tago xataa qaadka wuxuu ka qayb qaataa in qofkii uu noqdo qof riximkii jara oo qaraabo goysa waqti uma helayo xataa saaxiibadii waxaa jirta maahmaha dhalinyarada qaadka cuna ay ku maahmaahaan rubac waxaa la yidhahda waa nooc ka mid a qaadka waxay yidhahdaan marka rag isu waaye rubaca kala geeyay yani waxaa kala mashquuliyey qaadkaasi raggii way isku imaan waayeen waa hagaage waxaa jira rag dhalinyaro ah soomaaliyeed isku hoolay waxaa ka xusi karaa nin waa dambe qaadiid u bixiyeen oo wariye ah oo dhanka Yurub joogo ku guuleystay in Ingiriiska uu ka cirib jaro in qaadkaas la geeyo usrooyin badanaa farxayo raggii ku mashquulsanaan jiray qaad curista bilaabeen inay ku laabtaan ehelkoodii u qidmeeyaan oo xaaskii iyo caruurtii ay u sheekeeyaan marka xamlo noocaasina Soomaaliya mar way ka bilaabeen marka dadkaas oo kale maxaa usoo jeedin lahayd iyo dhalinyarada qaadka cuntaba fariintaada maxay tahay ku wajahan qaadiid adoo ka bilaabay iyo ragga ku xigaba wallahi runtii dadaalka noocaas waa dadaal loo baahan yahay markii ay mushkilad ay ka hor timaado qof waxaa fiican in aan hal dhinac oo kale laga gelin saxiix haddii aan xagga diinta ay culimadu ka hadasho xagga caafimaadka waa inay dhakhaatiirtu ka hadlaan xagga dhaqaalahaas aan sheegayna waa inay ka hadlaan maaragtay nimanka dhaqaaliyahanka dadka maaragtay ku takhasusay arrimaha bulshada iyo maxaan ku dhahaa arrimaha qoysku iyaguna waa inay taa ka hadlaan waa in la isu keeno dadaalka waa in la mideeyo waa in dadkii maxaan ku dhahdaa la wadaajiyo oo nagala qayb qaata howlahan iyaga ah waa mahadsantahay insha allah fariintaadana inay gaartay ayaan rajeynaya waa hagaag daawadayaal weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii fataawaha oo aad ka daawanaysaan tv-ga Africa 4 barnaamijka qaybihii kale iyo su'aalaha inoo harsan waynu sii anbaqaadi doonaa waynu isku soo laabanaynaa bacda faasil insha Allah taala oh, oh, oh.